War degdeg ah oo hadda naga soo gaaray magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa waxay sheegayaan in Komishanka Doorashooyinka ee Somaliland ay ku dhawaaqeen natiijada codbixinta ee doorashada isa saaran ee xisbiyada iyo madaxweynaha Somaliland, iyadoona guddiga maanta si rasmi ah ugu dhawaaqeen isla markaana ay sheegeen in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu noqonayo madaxweynaha Somaliland, iyagoona sidoo kale ka warbixiyay sida ay u soo kala gudbeen xisbiyada tartamayay. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa dhowr iyo 10 sano ayna soo dhaafnay raadinayay xilka madaxweynaha ee maanta uu ku guuleystay kadib markii shacabweynaha Somaliland 13 November ayna soo dhaafnay si rasmi ah ay ugu codeeyeen inuu noqdo madaxweynaha Somaliland kadib doorasho toos ah oo ka dhacday deegaanada maamulkaasi. Waxaana si aad ugu hambalyeynaya guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kale madax ka tirsan wadamada deriska la ah dalkeena ay hambalyo u direen hogaamiyaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, iyadoona sidoo kale la tilmaamay in xaaladda amni ee Somaliland ay tahay mid aad loo adkeeyay isla markaana la xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada Somaliland ee doorashooyinku ay ka dhaceen si aysan u dhicin iska hormaad iyo wax la yiraahdo coddiidis ay muujin karaan xisbiyadii loogu guuleystay kursigan maanta uu ku soo baxay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ee madaxweynaha Somaliland tahay doorteen shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi Somaliland. 13 bishan aynu ku guda jirno ayay codbixinta ama doorashadu ay ka dhacday deegaanada Somaliland, iyadoona muddadan bala sugayay natiijada ay ku dhawaaqayaan Komishanka Doorashooyinka. Shacabka ku nool deegaanada Somaliland ayaa horey kaga biidinsanaa in mar kale codkoodu ay siiyaan madaxweynaha doorashada looga awood badiyay ee Muuse Biixi Cabdi, iyadoona sidoo kale la sheegay in shacabka Somaliland rayadoodii ahayd in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay u doortaan madaxweynaha Somaliland ay u rumowday kadib markii doorasho toos ah ay galeen isla markaana shacabku iyagoo qofka ay rabanba ay ku soo dooranayeen doorashadaasi. Komishanka ayaa sidoo kale markii ay ku dhawaaqeen natiijada ka codsaday shacabka Somaliland in xaaladaha ay dejiyaan isla markaana goobaha qaar la geeyay ciidamo adkeynaya amniga goobaha shacabku ay soo baxayaan. Gobolada Somaliland ee codeyntu ay ka dhacday ayaa xilligan waxaa ka socda dabaaldegyo ay muujinayaan shacabka ku nool deegaanada Somaliland maadaama ay heleen qofka iyaga ay doonayeen, iyadoona gobolada Togdheer, Saaxil, Maroodijeex iyo gobolada kale ee Somaliland xilligan ay ka socdaan dabaaldegyo aad u ballaaran isla markaana wadooyinka iyo goobaha kale ee bulshada isugu yimaadaan ee magaalooyinkaasi si aad ah laga dareemayo dabaaldegyada ay muujinayaan shacabka ku nool deegaanada Somaliland. Mas'uuliin hore kaga tirsaneed maamulka Somaliland isla markaana ku sugan Muqdisho ayaa sidoo kale hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa isna hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, isagoona shacabka ku nool deegaanada Somaliland iyo siyaasiyiintaba ka dalbaday inay la shaqeeyaan isla markaana ay ka qayb qaataan horumarka deegaanada Somaliland.